qof walba iyo ruux walba waxaan siinayaa oo naftayda ugu horeyso yacni tusaale yar ama nasteexo yar oo ku saabsan xagga kalsoonida. sida aynu wada dareemi karno dad badan maanta dunida ku nool waxaa yacni dhibaato ku haya kalsooni la-aan, ama been loo sheegay ha ka timaado ha sababto, ama ballan looga baxay, ama waxyaalo kale, ama dhib laftirkiisa loo geystaba ha ahaatee, ama qalbiga laga jabiyaba. tusaale oo kale haddaynu yara dadka yani fahan ahaan usoo dhaweyno, yani dad ballamay bini-aadamku waxa iyo xiriir inuu dhex maraya ka suulimaya, xiriirkaa sababihii doona ha keeno yani qaabku doonana ha ku yimaada iyo wuxuu doona ha ku saabsanaa. laakiin bini-aadamka rag iyo dumar, ragga dhexdooda iyo dumarka dhexdooda iyo labada dhinacba in xiriir iyo waxyaalo iyo mucaamal u dhex marayo ilaa waa lagu noolyaha adduunyada iyo dunida guudkeeda ka suuli mayno. laakiin waxaa jira waxyaalo badan oo dadku iskula kacaan oo xaqdarra ah ama dulmi ah ama qalbi jaba ama niyad jaba ah ama shaksiyadda qofka laga dhaawaco. dadkaas ayaan rabaa insha allahu tacaala in aan siiyo kalsooni yani arrin ku saabsan. dadka qaarkoodna su-aal ay weydiiyeenna de waa ka fahmayaa, qaar aanay weydiinna waan garanaya de inay haysato. dhinaca dumarka ama gabdha haddaynu ufiirino waxaad maqlaysaa gabar yani niyadda laga jibiyey, tal jacayl lagu abuuray, looga baxay, dhibaata iyadii waa walbasantaa lagu leeyahay, walwalberiya walbahaar. marka dadkaasaan rabaa inaan fariintaan u diro oo wax yara tusaalaysiiyo, shaksiyadoodana aan dhinac yar ka tuso, shaksiyadda ilaahay u hibeeyey laakiin aysan fahamsanayn ama aysan dareensanayn dhibka ku dhacay daraaddiis. awalan qofka noocadaasi ahow iska jir intaad nooshahay iyo ruux walbaba in aad waktigaada iyo noloshaada u dhiibatid mid aan adiga ahayn, qof aan adiga ahayn. hoggaankaada dhammaan inaad qof kale u dhiibatid. zamankaad nooshahay, xilliyadaada, murugadaada, farxadaada, waxaasoo dhan inaad qof kale ushaa u dhiibatid oo masallaha daba dhigatid. iska jir. haddiise arrintaa kusoo marinayayse kusoo marin, hadday kusoo martana dib uga kabo. haddaad sidaa samaysid oo waktigaada iyo zamankaada iyo noloshaada iyo xilliya nololeedkaada qof kale u dhiibatid, maxaa imaanaya? qof kasta oo kaa dambeeya oo adiga kaa hooseeya uu kaa hormaraa, uu kaa saramaraa haddaad saa samaysid. waayo qof shaksiyadiisa hormariya matihid. qofka liita ama aan dadnimada lahayn sideeda xaqiirka loo yaqaan kuma filnaanayso, ma deeqaysa adiga inuu ku baabi'iyo, noloshaada baabi'iyo, dadnimadaada baabi'iyo, adiga kuga xadgudbo. intaa keliya ma reebayso, ma ku filnaanayso. bal naftiisu wuxuu ka aas-aasayaa oo ku dhisayaa meesha adigoo aad ku jabtay ayuu naftiisa ku aasaasaya, meesha adiga ku baabaaday, meesha adiga aad yani aad ku halaagsantay, meeshaasuu naftiisa ka abuuraya. qofka xaqiirka ah ee xumaanta kula doonaya laakiin wejiga macaan iyo niyadda kuu dhisay dee beenbeenna kuu sheegay oo maaragtay iyo ama kula socday dee halkaasi waxaa ka dhalanaysaa su-aal dhahaysa wacnaheedu waxa weeye qofna ha aaminin oo naftaadaan ahayn. qof inaad aamintid waxaa la yihahdaa waa aqal min alqaliil, wax yar bay kasii yarta. xataa qur-aanka haddaad fiirisid dadka badan ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa inay jaahiliin yihiin, waxba aysan garanayn, waxba aysan fahmayn, waxba aysan rumaynayn. dad yarna ilaahay waa ammaanaya. sidaa darteed waxaad maqasheen aayad dhahaysa waqaliilu min cibaadiya ashukuur. aad bay u yaryihiin buu ilaahay leeyahay addoommahayga kuwa ii mahad celiya. allihii raxmaanka ahaa ee raxiimka ahaa ee bini-aadanka abuuray bay sidaasi bini-aadanku ku yihiin. adiga see kugu noqonayaan bini-aadanku marka? idaylkood 90% inay kaa hor imaadaan soo maha. marka waxba ha ka sugin iyo kalsooni. inta la aaminayo kalsoonida loo dhiiban karo wax yar bay kasii yaryihiin marka waa caalam qodxa badan waayo oo godad badan laisku qoray. qofna aaminin marka naftaadaan ahayn. halkaas su-aal baa ka imaan kartoo dhahaysa oo saaxiib ma jira miyaa? waxaan ku leenahay saaxiibka koobiga ah ee la suuradeeyey waa sida dalladoo kale ama hooska marka qoraxda ku haysana wuu soo baxayaa, meel harle markaad tegtina uu baaba-a. marka saaxiibadu saas u badan yihin. maalintaa faraxsan tahay oo khatar tahay oo sarraysid, wax haysatid, xoola haysatid, magac leeda way kula jiraan. maalintaa dhulka ku dhacdina way kaa tegaya. markaad xidigaha joogtid way kula jiraan saaxiibadu, markaad dhulka joogtidna way kaa haajirayaan, way kaa tegayaan. marka saaxiibku waa sidaas yani koobiga yani la suuradeeyey. laakiin sideedaba say doonto ha noqotee bilowga horeba ha noqon qof sahlan, si sahlan lagu geli karo. yani fariintan dadka goonida u leh waxa weeye gabdhaha.
يريسكا بنت الله شيء خيانة ده وحاسي جعل نني واسان حاجة كارك بيها يقعد يحمو قطع نفتا كورو كود يحنو شيء كي إنه على الله آخر نيوان لبض غيره كسبنا يعني وحكير قف البو مركب بلو أتاهي هالنقون قف فضود وسهل لو قليل ويا واحد سهل أتكوه شيء سهل بعضو خساريسه قف كسهل لولش يسوق شيء سهل بكون عايش في فضود قف كونك سني قروح ضبطن قيمة على الشخصية ضل الضد لماذا كتاجن وقفك أنا هين قفك سهل نقول قفك فضود سهلا سهل الله نوع سهل لو سوتشيتو قفك قف عن ما شخصية الضد لماله سيدا سوحنا نقطة ملك مركه هربا يبيرو جوا قف أضد وأن لسوتشي كن taasoo ka dhalato in aad naftaada muhiimad siiso ayada aad ku mashquulsido hormaysi shakhsiyadaada iyo dadnimadaada iyo wixii ay ku abuurtay markaasaad farxad helaysaa oo naftaadu liibaanaysaa qofka naftiisa aan ku kalsoonayn naftiisana aan farxad siino hormarin qiimaha ilaahay siiyana aan siin waa qof dadko dhan yacni u jaban wey u sahlan wey si yaray ku galayaan si yaray uga baxayaan albaab guri oo iska furo marka daba noqon marka inaad farxsan tahay marka been lagu sheegay kadib marka qalbiga laga jibiyay kadib inaad noloshaada sii wadatid markii ballan lagaaga baxay kadib waa hubka ugu weyn aad uga aarsan kartid qofkii waxa ku geystay iska jaahiliyeen iska dagatir noloshaada wado nolow abuuro marka waxa soo baxaysaa sidii qof aan dhibba soo marinba oo weligiis qofna been u sheegay oo weligiis qofna riwaayad u dhisay ayaad noqonaysaa laakiin marka xasuusatid wixii lagu sameeyay tiraada adiga waa lagu dambeeyay adiga waa lagu xaqiray hadii la kooraya adiga ballan baa lagaaga baxay adiga been baa lagu sheegay adiga waa lagu dhaawacay waxaas oo dhan waa albaabka shaydaanka marka shaydaan wuxuu ku qurxinaya waxaas oo dhan waxaad noqonaysaa qof nolosha ka dhacay aakhirka maxaad noqon laba mid qofkii waxaan kugu sameeyay inuu adiga kuun diirnaxo yiraahdo alla iso dhiman u nax gabadha ama uu kugu sii camirto labadaas noqonaysa labadana khayr kugu ma jiro marka adkayso dhexda xiro qofkii beenta ku sheegay wiilkii jacaylka beenta ku sheegay bal reer kale in aasaasato nolol kale raadtay markuu arko waa niyad jabay qofkaasi mana seexanayo mana ladayo anaa ku yiri waa hubka ugu weyn aad uga aarsanaysid qofka qalbigaada jabiyay mahadsanid